السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا جنالكينا سوبر بلاس قيبتي سيدي رجلينتا oo aan maanta ku soo qaadan doono qiso ku saabsan cafinta iyo qiimaha ay leedahay. nin ahaa reer bani Israa'iil oo muslim ahaa waxa uu rumaysnaa aakhiro laakiin caasib uu ahaa waliba ku darsaday dambiile oo aan acmaal saalix lahayn. hase ahaatee ninkani waxa uu Allah ugu deeqay hanti iyo maal fara badan, yacni Allah waxa uu siiyay deeq uu ku maareeyo noloshiisa. waxa uu lahaa caado ama arrin u gaar ah oo uu sameyn jiray. waxa ayna ahayd taasi inuu dadka deemiyo lacago. markaas ayuu ku oran jiray dhalinyarada u shaqeysa ordo oo aada dadkii aan deemiye lacagaha oo iga soo qaada deemihii aan deemiyay. markaas ayuu u raacin jiray dhalinyarada qofkii awooda bixinta lacagta iga soo qaada lacagta, hadalkana u jilciya, balse kii aan awoodin u saamaxa u samafala, yacni iska cafiya oo waxba ha weydiinina. waxaan ka rajaynayaa Allah inuu nacafin doono maalinta qiyaamaha. ninkii buu Allah soo bixiyay qiyaamihii. markaas buu ku yiri Alle, maxaad camal saalixa oo aad haysataa, yacni aad samaysay? markaas buu ku yiri ninkii, yaa rabbi, waxba ma samaysan oo waxba ma haysto. balse ninkii ayaa u raaciyay Allah subxaanahu wa tacaala oo ku yiri, laakiin rabbiyo waxaan lahaa hal arrin oo aan samey jiray. Allah subxaanahu wa tacaala isaga uga aqoon badan arrinta ayuu ku yiri, maxay ahayd taasi? ninkii baa ku yiri, dadka ayaan deemi jiray lacagaha. markaas ayaan ku oran jiray dadka ii shaqeeya ama dhalinyarada ii shaqeysa orda oo aada dadka oo iga soo qaada lacagihii aan deemiyey. kii awooda bixinta lacagta iga soo qaada, hadalkana u fududeeya oo ha ku dhibinina. kii aan awoodin bixinta lacagtana iska cafiya oo saamaxa. waxaan ka rajaynaynaa Allah inuu nacafin doono maalinta qiyaamaha. markaas buu Allah jalla jalaaluhu ku yiri, annaka ayaa taas kaaga mudan oo karamkaas iyo wanaaggaas iska leh oo kaaga sarreena, waana ku cafiyey. markaas ayuu amray malaa'igtiisii, geliya addoonkayga jannada bilaa shaki la'aan. haddaba walaalkayga iyo walaashayda i daawanaya, maxay ku timid taasi? maxaa addoonkii caasiga ahaa Allah u geliyay jannada? waa su'aal isweydiin mudan. miyaad garanaynin in wanaaggii uu sameeyey dartiis uu Allah ugu dambi dhaafay uuna geliyay jannada? maxaa kuu diiday inaad u samayso dadka wanaagyada aad ku heli karto waxyaabaha wanaagsan? u sameey dadka oo u samafal. haddii aad daawatay muuqaalkan xiisaha badan, u sii sheergaray asxaabtaada oo gaarsii qof waliba oo aad la jeceshahay wanaagga. mahadsanideen.